wasaaradda horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa soo gabagabaysay koob loo qabtay maalintii ay Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay mustacmaradda Ingiriiska 26 Juun waxaana koobkaasi ku guuleystay kooxda gaashaan ee ku ciyaartay ciidanka qaranka Soomaaliland munaasabad kooban loo qabtay ayaa ka dhacday hoolka xafiiska Barasaabka waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka qaranka Barasaabka gobolka Togdheer isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale kooxda gaashaan iyadu koobkaasi ku guuleysatay isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi gaashaan dhexe kayd محمد أبان دولها قيتل يتنادي عيدا كقرنكا يسيدو كل قاشان لا سلام محمد أبوكر محمد أبان دولها أجبري عيدا كقرنكا يا الكاسي كادلي وقولنا ما هنقي جوش يكسو هي كوب كاسي halkan maanta waxa inoo yaala koobkii 26 Juun maalintii aynu la soo noqonay xorriyadda iyo goonistaaga 1960kii ilaa 1990kii oo dib aynu la soo noqonay goonistaagii iyo xornimadeeni aynu lahayn ayaynu ku marti qaadnay oo ku sharafnay inaynu qabsano koob maalinta aynu ku xuseynay waxay ahayd maalin taariikhi inagu ah qaranka Soomaaliland maanta waxa qaaday koobkii iyadoo oo laba naadi isugu yimaadeen gaashaan iyo naadiga xanaanada xoolaha aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidanka gaashaan oo maanta hormuudka ah gobolka oo laba jeer koobkii 18 miina qaaday koobkii 26 Juunna ku guuleystay waa kooxdii ugu horeysay ee ciidanka qaranka ah ee Burco laga asaaso intii ciidanka qaranku jiray waa kooxdii ugu horeysay ee markii ugu horeysay ciyaartay soo hoysay sumcaddii ugu wanaagsanayd ay qaaday laba koob oo isdaba jooga oo milyaanka maanta inoo hor yaallay 26 Juun maalintii qarannimadii Soomaaliland aynu qaadanay calanka waxaan kaloon mahadnaqayaa taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo ah ninka aasaasay kooxdan ballanna qaaday wixii ay cagtooda ku kasbadaan in lagu abaal mariyo waxaan leeyahay taliyahana taliya way kasbadeen waani soo hooyeen guushii inta ka dhiman insha Allah bismillaah kariimna waad noo raacin doontaa insha Allah bismillaah kariim waxay isku xirtaantii farsamooyin halka iskaashata waxaan ku dadaashay oo baynaan noqotaan oo isku xiran oo farsamada gudoomiyaha gobolka Togdheer injineer Xamse Maxamed Cabdi Walaal ayaa isaguna halkaasi hambalyeeyay guud ahaan bahda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo kooxda gaashaan ee ku ciyaarta magaca ciidanka qaranka ay ku soo bandhigaan fagaarayaasha ay isugu imanayaan dhalinyarada sportsku ee heer gobol magicii iyo sumcaddii iyo karaamadii lagu yaqaanay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Togdheer annaga runtii ka maamul ahaan waa naga go'aantay in la dhiiri gelino dhalinyarada sportska waxaad ogtihiin inaad maanta idinku nasiib u helaysaan inaad ku ciyaartaan garoon casri ah oo loo sameeyay qaab casri ah oo roogii cagaaraa la idin dhigay oo qaybihii kale ee runtii maaragtay ka dhinaanay imika gacanta lagu hayo garoonkaas oo aan rabno inay ka soo baxaan ragga aan sheegayo in waqtiyada la ciyaarayo sida maantaba aan muujiseen markii koobkan maaragtay u tartamayseen inaad si walaaltinimo ah oo hufan oo kalgacaltooyo ah u ciyaarteen markasta oo aad ciyaaraysaan ama gobolka Togdheer ku ciyaara ama gobol kale oo kamid ah gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku ciyaaro inaad muujisaan xilkasnimo inaad muujisaan ciyaar walaaltinimo inaad muujisaan ciyaar saaxiibtinimo gabagabadii waxaa biladay shahaadooyin lagu maamusay Barasaabka gobolka Togdheer iyo saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliland Axmed Jaamacadan Axmed Digiro TV-ga qaranka Soomaaliland Burco